السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد حسين العمودي وانين قناعسده سعوديان كون dhashay dalka Itoobiya sanadkii 1946 waxaana waalid u ah hooyo Itoobiyaan ah iyo aabba Yemeni ah oo asalaan ka soo jeeda gobolka Xadrimood ee dalka Yemen. wuxuuna sanadkii 1965 asigoo 17 sano jir ah tahriib ku galay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. muddo kadibna wuxuu noqday muwaadin Sacuudiyaan ah asigoona ka shaqo bilaabay fuundinimo. wuxuuna ka mid ahaa shaqaalaha caadiga ah ee guryaha dhisa. kadibna waxa uu soo gashay inuu aruursado xogo lacag ah isla markaana sameeyo shirkad dhismo oo ka shaqeeyay guri dhisida. muddo kadibna wuxuu galay suuqa shidaalka asigoona suuqaasi ka helay faa'iido badan. hadda Al-Amuudi wuxuu xarumo ganacsi ku leeyahay dalalka Sacuudiga, Itoobiya, Morocco, Ingiriiska iyo Sweden. waxaana xaas u ah haweeney lagu magacaabo Sonia Saalax Seylaasi oo u dhashay 8 caruur. waxayna sanadkii 1988 shirkadda dhismaha ee Al-Matruk oo uu leeyahay Al-Amuudi qandaraas ku kacay $30 bilyan ku qaadatay dhisida kayd shidaal oo dhulka hoostiisa laga dhisayo gudaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. wuxuu kale Al-Amuudi la wareegay sanadkii 2000 shirkadda birta soo saarta ee Yanbac. sidoo kale wuxuu ballan qaaday Al-Amuudi sanadkii 2011 in uu gudaha dalkiisa Sacuudi Carabiya ka dhisi doono warshadii ugu horeysay ee sameeysa baabuurta asigoona kaashan doono maalgeliyaal iyo tumaale ajnabi ah oo u badan koonfurta Kooriya. dhan kale waxaa lagu tiray Al-Amuudi maalgeliyaha ugu weyn dalka Sweden halkaas oo 70meedii uu ka bilaabay howlo ganacsi iyo maalgelin asigoo maalgelintiisa ku mutaystay abaalmarino. sidoo kale Maxamed Al-Amuudi waa ninka labaad ee ugu hodansan dunida Carabta marka laga reebo Waliid bin Dalaal. wuxuuna maalgelin xoog badan ku sameeyay dalkiisa hooyo ee Itoobiya asigoo magaalada caasimadda ee Addis Ababa ka dhisay hotel weyn oo aad u qurux badan isla markaana casri ah ka oo noqday hotelka ugu caansan hoteelada ku yaala qaaradda Afrika. waxaan loo magacaabaa hotelkani Sheraton. wuxuuna dhisay Al-Amuudi hotelkani sanadkii 1998 waana hotel qaali ah oo deegaan inta badan maalqabeennada iyo madaxda caalamka ee booqashada ku tagta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. dhanka kale waa hotel bilicda iyo quruxda Addis Ababa kor u qaaday waxaana ku baxday dhisidiisa $200 milyan. wuxuu kale Al-Amuudi maalgashaday beeraha asigoo sanad kasta soo saara kumanaan tan oo bariis iyo galley ah. waxaana hawshan u qaabilsan shirkadiisa Najma ee dhanka beeraha taa oo caan ka ah gudaha dalka Itoobiya. dhanka kale Al-Amuudi wuxuu ka helay jaamacadda Addis Ababa shahaado sharaf. wuxuu kale gudaha Itoobiya ku leeyahay warshad samaysa shamiitada ayadoo la ogsoon yahay in uu leeyahay Al-Amuudi shirkad dhismo oo dunida Carabta caan ka ah isla markaana ku guuleysatay qandaraasyo badan oo dhanka dhismaha ah. hadda Al-Amuudi wuxuu kaalin muuqata kaga jiraa dhisida biyo-xireenada laga dhiso dunida Carabta iyo gudaha dalka Itoobiya asigoo hadda door muuqata ka qaadanaya dhisida biyo-xireenka weyn ee muranka badan ka dhexdhaliyay dowladaha Itoobiya ee Masar ka oo lagu magacaabo biyo-xireenka Nahda. waxaana hantida Al-Amuudi lagu qiyaasay $13 bilyan. wuxuuna ku faanaa inuu kaalin mug leh ka qaadanayo dhisida biyo-xireenka Nahda ee dalkiisa hooyo Itoobiya asigoo sheegay inuu ku kaalmeeyay dowladda Itoobiya adduun dhan $88 milyan si loo socodsiiyo dhismaha biyo-xireenka ka oo dhibaato weyn u geysan doono ummad 105 milyan ku dhow oo ku nool dalka Masar kuwa oo si weyn ugu tiirsan biyaha webiga Niil. biyo-xireenkani oo yareyn doono qulqulka iyo biyo-badnida webiga Niil. Al-Amuudi ayaa ka mid ahaa ganacsatadii iyo amiiradii lagu xiray hotelka weyn ee ku yaala gudaha caasimadda Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya ayadoo lagu eedeeyay fasaad maaliyadeed. aakhirkiina xaaladda Al-Amuudi waxay ku dameysay inuu isku furto malaayiin $. inkastoo Al-Amuudi ganacsigiisa ku faafsan yahay dunida haddana wuxuu si gaar ah xoog u saaray dalalka Sacuudiga, Sweden iyo Itoobiya asigoo maalgelin badan ku sameeyay waaxda caafimaadka ee dalkiisa Sacuudiga oo malaayiin $. ayuu ku maalgeliyay xarunta cilmi baarista kansarka naasaha ee raacsan jaamacadda Boqor Cabdilcasiis. sidoo kale wuxuu sanadkii 2008 maalgeliyay macadka Boqor Cabdullaahi ee teknolojiyadda oo ah macad hoos imaada jaamacadda Boqor Sacuud.